بسم الله magacayga waxaa la yiraahdaa aadan maxamed ciise waxaan ahay nin muwaadin Soomaaliyeed ku dhashay dalka Soomaaliya ku barbaaray wax ku bartay ilaa heer jaamicadeed dabadeetana dibadaha u dhoofay ayagana waxbarasho post graduate ama heerka sare ee tacliinta ku soo qaatay dalka Soomaaliya ka shaqeynayay muddo aad iyo aad u dheer gaar ahaan intii wadanka Soomaaliya dhibaatadu ka jirtay sidoo kale waxaan aad iyo aad uga shaqeeyay dalka Soomaaliya ee daraf ilaa daraf ama gees ilaa gees laga bilaabo dhinaca xuduudda aan Kenya la leenahay Soomaaliya ilaa aan ku dhamaano yani xaafuun dhinaca kale ilaa burco dhinaca kale aad iyo aad baan uga shaqeeyay muddadii dhowr iyo 20 sano ahaydna soo dhaaftay anigoo mas'uul ka ahaa Organization Relief Somali Relief Network of North America kana qayb qaadanay abaarihii xanuunka badnaa ee ummadda Soomaaliyeed soo maray dhinaca biyo iyo raashin iyo dawo iyo talo iyo maxaanku wax la qabad kala duwan u soo qabanay waqtigan hadda la joogo waxaan u taaganahay inaan ahay in u baratamaya madaxweynenimada dawlad goboleedka Puntland ee 2019 waxaan jeclahay inaan dalka ku soo kordhiyo waxyaabo aan isleeyahay ama waa ka dhiman yihiin ama in kor loo qaaday u baahan tahay waxa aan aad uga shaqeynayaa xagga nabadgelyada maxaa yeelay markii nabad yeelahay reer nabada looma talin waayo ummaddu inay nabad ku noolaato nafteeda inay nabad ugu noolaato reer Puntland oo dhexdeeda nabadi ka dhacdo nabad inay kula noolaadaan dad walaalahooda Soomaaliyeed ee dhinac walba ka jira nabad inay kula noolaadaan dawladaha kala duwan ee dalka nabad inay kula noolaadaan dadka kale oo aan Soomaalida ahayn xuduudda aan la leenahay dhinaca nabadda inaan xoog saaro dhaqaalaha inaan xoog saaro oo wadanka yani dhinac walba hadii ma arkaysa dhaqaale fiican wadanka loo sameeyo loo hirgeliyo de wadanka oo dhan baa najaxaya oo nabaday xataa kor u qaadaysa xoog saarayaan maadaama aan nabaddu ciwaankayga koobaad tahay nabaddu midna waa dadka oo nabad lagu noolaado midna waa ciidan nabadeed oo habaysan oo la dhiso oo ma arkaysa aan ilaalino xagga dhiirgelintiisa tababar haday tahay kafaala qaadid caruurteeda iyo naftooda haday noqoto wixii dhinta oo dawladdu ay mas'uul ka tahay dhinaca inaan xoog saarno oo dawladdu ay mas'uul ka tahay dhinaca inaan xoog saarno waxaan kala rabaa inaan aad iyo aad u horumariyo xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya dawladda Puntland iyo dawlad goboleedyada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ee Soomaaliyeed dhamaantoodba xiriir wanaagsan ayadu inay la leedahay xiriir wanaagsan dhamaantood wixii wax soo dhaxgalaana inay noqoto dadka koobaad ama dawladda koobaad oo xalisa waan rumaysanahay Puntland inay hooyo u tahay dawladda federaalka iyo dawladaha kale ee dawlad goboleedka samaysmayba dhamaantoodba waxaa si fiican u hagtay oo qayb ka qaadatay Puntland laga shaqeeyo dalka hadda kadib in qof waliba cod uu helo oo uusan noqon mar dambe tiro yar oo ama la gadan karo ama la tuhmi karo ama dadkii aan wada matali karin maxaa yeelay tiro yari dadkoo dhan ma wada matali karto waa ku meel gaar laakiin in la gaaro xal ah qof walba iyo codkiis ayna cadaato qofkii ummadda oo dhan codkeeda helaa kalsoonida ummadda oo dhan inuu helayo taasna inaan aad iyo aad uga shaqeeyo kudhageenu waxa weeye waanu yeeli karaa waxaan sheegay iyo ka badanba waan qaban karaa waxaan rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo horumar waxaan codsanayaa dadka walaalaha ee Soomaaliyeed ee gaar ahaan dadka reer Puntland si gaar ahaaneed xildhibaanada codka maanta bixinaya iyo ummadaha kale ee Soomaaliyeed meel kasta ha ku noolaadeen dal iyo dibadba inay arrinta igu taageeraan oo igula shaqeeyaan maxaa yeelay waa dantaadii waa dantaydii waa dantii dalkeena iyo diinteena iyo dadkeena marka waxaan rajaynayaa inaad shaqada igala qayb qaadataan